iyadoo ay soo badanayaan urur siyaasadeedyada xafiisyada ka furanaya gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolkan Awdal ayaa waxaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal urur siyaasadeedka Jamhuuriga oo kamid ah ururadii dhawaan lagu dhawaaqay inay sharci yihiin soo dhaweynta urur siyaasadeedkan Jamhuuriga ayaa waxa ka qayb qaatay taageerayaasha ururku ku leeyahay magaalada Boorama taageerayaashaas oo isugu jiray dhalinyar iyo qaybaha kale ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Boorama مسؤولينta iyo madaxda urur siyaasadeedkan Jamhuuriga ayaa kula hadlay taageerayaasha ururkooda barxadda xafiiska ururkan ku leeyahay magaalada Boorama ee gobolkan Awdal warayna waxa halkaas hadal ka jeediyay madaxda urur siyaasadeedka Jamhuuriga ee gobolka Awdal waxaanay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin kamid ah wafdiga kana mid ah xubnaha fulinta ee ururkaasi Jamhuuriga waxaana hadaladoodii kamid ahaa Jamhuurigu waxa weeye waa xisbiga Jamhuuriga waa xisbiga kaliya ee Republicanka ee cadaaladda iyo dimuqraadiyadda iyo dhalinyarada horumarkeega ka shaqeynaya weeyaan waxay noo jooga gudoomiyihii ururka gudoomiye ku-xigeenkii gudoomiye fulinta ayaa noo jooga dhammaantood ayaynu maanta ku soo dhawaynaynaa waana xafiiskii gobolka Awdal Boorama walaalayaal waxaa muuqata ummadda in la isku dilayo ayaa muuqata أول بعد ما يكلا دحجل شرين إذا ومشوا بمشرين مربع إن شاء الله إيران أنا أي حاجة هاي حفلة في ركانك وحوية تبر إلا يسويدي وحكد عيشل لرفع وتذكرنا أيها تفربا وحكد عيه وإتفيني له بالمريض والله وحكد إلي رجاوه sidoo gurmadii looga waxa ku xigay meesha la ka shaalay wixii ka dhacay waa looga sidoo gurmadii waxa loogu soo gurman laayay inteena galbeedka ee imika loo daawanayo muddada dheer ee qasqasku ka socday horta wax isweydiin leeyahay kuma isweydiin ugu dambeynna waxa halkaas hadal ka jeediyay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka Jamhuuriga Dr. Farxaan Saciid Khariif iyo gudoomiyaha ururkaasi Cismaan Xasan Mire waxaana aad ugu mahadceliyeen soo dhaweynta loo sameeyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa من نظر مسؤولين مثل بدو حضرتك الناس فلا ولا من نوع مهارات كدكتي وديجا ده كان بيورد أي مهارات كدكتي لبضع سمير من الدجاجين عقل غير شقيه وعقل جل من سامي وما بطل لقاته marka hadalka waxa lagu ku wareejinayaa gudoomiyaha makarafoonka oo ku yar cusub ay bedelaanay raalli ahaada sidii loo sheegay ururkani wuxuu midayn doonaa midnimada wadajirka nabadda bulshooyinka ku nool gobolka Gabiley iyo gobolka Awdal waa dad walaalo ah oo midowsan oo isdhalay ninba ninka kale ayuu wax isku yahay waxaan rajaynayaa inaynu sidaas ku xisaabtanno ururahan anagu maanta waxaanu u nimi qorshaha ah inaynu furo xafiiskii ururka Jamhuuriga ee gobolka magaalada madaxdiisa Boorama marka furitaankaas baynu u furaynaa waynu furi doonaa insha Allah haddii alla yidhaa wixii cadalo iyo dardaarana waynoo dambayn doonaa kaambeynka dambe marka la isku yimaado waxaan jeclahay in lala shaqeeyo gudoomiyaha ururka Jamhuuriga oo agtayda jooga ee gobolka iyo gudoomiye ku-xigeen عبد الرحمن حسين لبدا سانو hawshii iyo xilkii gobolka yaanu ku wareejinay oo noo magacawnay iyaguna waxay dhisi doonaan gudiyadii kale oo ay buuxinayaan kii dhalinyarta kii haweenka guud ahaan iyaga xilkii aynu ku wareejinay marka wakiil rasmi ka yihiin ururka Jamhuuriga si kastaba ahaatee furashada xafiisyada urur siyaasadeedada tirada badan ee dhawaan lagu dhawaaqay ay dad badan isweydiinayaan waxa ay soo kordhin karaan dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka dalka Soomaaliland Haashim Sheekh Cumar Good Somalisat TV Boorama